dhulka dagaalku ka dhacay waa inta u dhaxaysa buurta Garasyaani iyo tuulada Nuur Fanax oo wax ka yar 60 kiiloomitir u jirta caasimadda gobolka ee Beledweyne waa dhul dhan 20 kiiloomitir oo dheer ah buurahana ay dhanka bari ka qabanayaan iyagoo aad moodo silsilad oo aan marnaba kala go'aynin halka galbeedkuna uu noqonayo dhul karkaara ah oo geeda leh oo ay adag tahay qofka lugaynaya inuu si saaniya u maro waxaana uu ku qasban yahay inuu maro dhabaha baabuurta ay maraan waana tan keentay in kooxaha hubaysan ay halkaasi galaan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada halkaasi maraya ee Itoobiyaanka sida uu qabo Sheekh Cabdiraxiin oo ah hafayeenka xoogaga maxaakiimta runtii dhulkaasi sidaas ka warqabto waa dhul aad istiraatiiji u ah dagaalka cadowgana halkaas dhaawacyo fara badan ayaa marar kala duwan ka soo gaaray markastay maraan insha allahu tacaala mujaahidiintu diyaar ay halkaas u yihiin waxaa jira oo dad dagaalka kadib soo maray goobta dagaalku ka dhacay ay sheegeen inay arkeen meelo badan oo dhiig ku daatay halka kuwa kalena lagu shubay sida ay sheegeen saliidda madow ee baabuurta lagu shubo si loo qariyo dhiigga dadka halkaasi ku daatay waxaana ay tilmaameen in ciidamada Itoobiyaanka ay olyada halkaasi ku shubeen dadka dagaalkan ku dhintay inta la og yahay waxaa ka mid ahaa dad rayida oo 8 qof gaaraya oo mid ka mid ay dumar tahay kuwaasi oo qaarkood rasaastu ay ku dhacday iyagoo ka baxsanaya dagaalka waxaana meydadkoodii saaka lagu kala aasay tuulooyinka Nuur Fanax iyo Booco ee nawaaxiga magaalada Beledweyne sida ay BBC-da u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka dhinaca maxkamadaha islaamka markaan eegna qasaaraha dagaalkan ka soo gaaray waxa weeye inta la og yahay 2 nin oo labaduba lagu sheegay inay ahaayeen mas'uuliyiin oo uu ka mid ahaa hogaamiyihii maxaakiimta islaamka u qaabilsanaa gobolka Hiiraan Sheekh Aamin Barqadle Daacad oo da'diisa lagu sheegay 47 jir waxaana uu ku dhashay deegaanka Moqokori ee degmada Maxaas saacado kooban kadib ayuu u geeriyooday dhaawac halis ah oo sida la sheegay ka soo gaaray dagaalkaasi shalay sida uu BBC-da u sheegay sarkaal sare oo ka mid ah hoggaanka xogaga maxaakiimta islaamka Xuseen Xaaji Maxamed Roble Gaagaale si kastaba dagaalkii shalay ka dhacay deegaankaasi wuxuu ahaa mid qorshaysan laakiin waxaa ku qatalmay dad reer guura ah oo roob ka daay halkaasi u soo naqraacay kuwaasi oo ciidamada Itoobiyaanka ay ula dhaqmeen sida kooxihii ka soo horjeeday waxaana ay xalay ciidamada Itoobiyaanka ay bariyeen meel aan ka fogeyn goobta dagaalku ku qabsaday iyagoo saaka soo gaaray isgoyska istiraatiijiga ee Janta Kundisho ee magaalada Beledweyne lama oga muddada ay halkan joogi doonaan iyo ujeedada ay u dageen ayaan la Xuseen Cabdi BBC Beledweyne